الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ليال مرتبة شرفت عليه سويت مذي شركان قيمها بضن وأنا ودنا لنا هاي إن مارتي لغو مقعابو جودي جود دور الشدة جود جاريد الصوماليات ودنا كتركيا آدي آد بأنك ما دعي المسجد وناقشنا بوسوا قبل شيء والله سعتان جودي فلنتا وحل كان غبتي وحى مقعابي جولها الدحى وجاريد أيام مقعابي إلى يسك هذا سديدي ثون بلاد أيهونتي سو شقية إلى اللي حفيز أيهونتي فران وحيابها القبتي أو كلنا كل واحد سوكو بكلمها لكن جودهان يعني وحي الغبن كري ومركز أي أودين هاي رنتي والقبتي لحظة حفيز مركز أي جالد أي فرتي رنتي وحفيزو دولة كديوان قشن وما أنت شقية أنت هذا بدن محوها إيشك رنتي وحكوب حي لغارة فربضن وقتي أياكوب حي آدي آدبان رنتي وما عليا dadka sharafta leh ay ugu horeeyaan ganacsatada oo runtii xoolahooda iyo waqtigooda runtii u horay xafiiskaad arkaysaan xafiisyada dhaqaalaha ku socda runtii dhaqaalahaas meel kale kama yimaado waxaa bixiya ganacsatadeena khaasatan Istanbul iyo magaalada Ankara marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ganacsatada sida wanaagsan ay markasta u garab taagan yihiin jaaliyada waxaan dhihi karaa bacd Allah haddaysan ayaga ahaan lahayn jaaliyada ma socon lahayn runtii ayagoo iska tabar liita oo duruufooda ay hayso ayay hadana markii wax la weydiiyo runtii ay dhaqaalaha ay ugu deeqaan xafiisyada aragteen oo quruxda badan oo maanta lagu manafacsaday oo maanta yani lagu shaqeeyo saraxatan ayaga sabab u ahaa dhaqaalaha ku socday marka dhaqaalo fara badan iyo waqti ay runtii ku bixiyeen ganacsatada aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ardayda oo runtii kaalid lafdhabara ka soo qaatay jaaliyada oo xaqiiqatan dadka wax ka soo dhisay jaaliyada ama juhdiga geliyay ardayda ayaa runtii number 2 ka ah oo gacan lagu siiyay in jaaliyada Turkiga ay dhaqaaqdo ay dhisanto oo maskaxdooda iyo runtii cilmigooda iyo maaragtay waqtigooda bana siiyay aasaaskii jaaliyada markaan aasaaseenay runtii aad iyo aad baan ardayda ugu mahadcelinayaa maaragtay gudiyada kala duwan iyo maaragtay maamulkooda gudoomiyaashooda aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa haweenka oo runtii door fiican ka qaatay oo aan dhihi karo ayaguna waxay ahayn laf dhabar waxaad dareemaysaa magaalo kasta oo jaaliyada ay joogto haweenku waxay u yihiin laf dhabar cidda wax saacidaysa cidda wax xiriirinaysa haweenka u badan marka ayagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wax garadka kala duwan ee degan waddanka Turkiga oo runtii markasta u taagan inay taageeraan ama aqli ku darsadaan ama ra'yi ku darsadaan jaaliyada oo meesha ka liidato wana saxaya runtii maartay kaalmeeya oo garab istaaga ugaasida ugu horeeyaan cuqaasha kala duwan oo jooga magaalooyin kala duwan runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa marka ugu dambeyn walaalayaal xilligan aan soo gaarnay waa xilligii magacaabista guddiga guud ee doorashada jaaliyada Soomaaliyeed ee waddanka Turkiga aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa intii yani la soo infaacay ama juhdi gelisay ama xoolo ku bixisay ama waqti ku bixisay aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa waxa shacabkooda u soo qabteen iyo garab istaageen runtii heerkan qof kaliya soo ma gaarsiin guddi fulin kaliya soo ma gaarsiin golo dhex soo ma gaarsiin waxa soo gaarsiiyay dadka isku duubana soo gaarsiiyay oo gacmaha isqabsaday ayaa soo gaarsiiyay maanta alxamdulillah wax habkii aan wax ku dooraneynay ama wax lagu soo xulay runtii 4.5 ma ahayn gobolays ma ahayn qof jecelays ma ahayn hab wuxuu ahaa qofkii wax qaban kara in la xulo marka insha Allah taala waxaan rajeynayaa mustaqbal wanaagsan ayaan u rajeynayaa marka sida awadeed haddana waxaan jecelnahay runtii aniga ka gudoomiye ahaan xilkaas culus ay saarteen oo 18 bilood aan soo hayay waxaan jecelahay xilkaasi amaanadii ay dhiibateen ayadoo nadiifa inaan insha Allah ku wareejiyo guddiga guud ee doorashada Soomaaliyeed ee waddanka Turkiga marka waxaan qiyaasayaa inaad iga guddoontaan gacmo furan aad ku qaabishaan waxaan u rajeynayaa guddiga insha Allah in ay shaqadooda qabsadaan si daacadnimo cadaalada maartay wadaniyada
isku duubniya markastana in aad ku dadaashaan midnimada iyo inaan meel ka soo wada jeesano sida hadda aan maaragtay aan ku soconay alxamdulilah yani waxaan dhihi karnaa waa jaaliyadda keliya runtii oo isku duuban oo ka jirta waddankan turkiga oo maasha allahu tacaala yani hirgashay oo iyadoo maaragtay ama aan laysku haysan hab maaragtay kala duwan marka aad iyo aad baan ku mahad celinayaa amaanadaasna inaa iga guddoontaan haddana kolley waxaan kusoo wareejin doonaa oo ila fadhiya cabdiweli oo insha allahu asna noo soo jeedin doona guddiga magacyadooda جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وحين هاي شرف إن أنا كسوق قلنا حفلة أنا كقبلني حفيز كجالية الصومالية تركي وجديدي سؤال هاي دور الشذا محلها مقعابستا جدي دور الشذا دوران دونه قدوميها يو gudoomiyaha iyo golaha dhexe jaaliyadda Soomaaliyeed ee Turki sida uu gudoomiyaha sheegay waxaan maaragtay mahad balaaran u jeedinayaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Turki in ay halkan imaado maanta joogto iyo heerkan waxaan si gaar ah aan rabaa inaan ugu mahad celiyo gudoomiyaha iyo maxaa la yiraahdaa guddiga fulinta oo wadii shaqo badan qabtay sida uu gudoomiyaha sheegaba ganacsatada ardayda haweenka iyo dhammaan oqaasha maxaan lahaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Turki ha noqdaana kuwa degan Istanbul iyo goboladaba waxaan rabaa inaan idin akhriyo warqadii magacaabista guddiga gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee Turkiga markii uu arkay cutubka lixaad qodobkiisa 8 firqadiisa koowaad ee dastuurka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Turki tixgeliyayna wada tashiga xubnaha fulinta ee jaaliyadda iyo waxgaradkaba wuxuu magacaabay guddiga doorashada gudoomiyaha jaaliyadda iyo golaha dhexe magacyadoodana waxay kala yihiin Dr. Abdulwahab Tayyib Ahmed Maxamed Umar Abdullahi عبد القادر سيدو آدن عبد الولي محمد سيد أحمد شيخ عبد الله عبد الشكور محمود محمد عبد الله داهر حسن عبد الولي محمد صلاة حسن معلن إبراهيم سعيد آدن حرسي أيومي عبد الفتاح حسين عبد الحميد عبد الله عيلاوي عبد الرشيد حسين موسى نعمان Abdullahi Aadan marka gudigan waxa ka codsanaynaa insha Allah in hawshaas ma aragtay ay sida ugu wanaagsan u qabtaan waxaana ilaa uga baryanaa in uu u fududeeyo maxaa la dhahaa waajibkoodaas waa mahadsantiin